بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كسو دبادا موقال كلا عصب يا قصة كلا. قصة داني وحي كساب سنتهاي قبر وآد أخرح بدن أيا جرتي وقصة دعضي حلي هوري dadkii naga horeeyay. gabadhan gabar qurux badan ay ahayd, balse jirkeeda ay ka ganacsan jirtay. waxay ahayd qof jirkeeda ka ganacsata oo saas ku shaqeysata. hadaba lacagta oo jirkeeda ku ganacsan jirtay oo halka haween ama halka mar oo qofka ragga ah ay ka qaadanayso waxay ahayd lacag aad u badan xilligaasi 100 diinaar oo dahab ah. waa lacag badan. maxaa yeelay waxay is leedahay waa qurux badanta adiga qofkan lacagta u sheegato horuka siina. qoftaan marka qofkii jirkeeda taabanaayo ama habeenkii la seexanaayo lacagtaas oo badan waa inuu keenaa, haddii kale agteeda ma kasoo dhawaanayo. ninbaa gabadhaa marka jeclaaday oo rabay inuu ka zinaysto, balse lacagta qoftaan rabta waa lacag aad u badan. ninkii wuu baxay, wuu soo shaqeeyey shaqo badan oo adag kadib ayuu soo helay 100 diinaar oo dahabka ahaa. wuu soo qaaday lacagtii, gabadhii u keenay. gabadha waxay tiri ninka dahablaha u dhiib, asaga tirinaaye. waa lacag dahab ah la tirinaayo, waa la miisaama wiliba. dahablaha loo dhiibay, dahablihii wuu tiriyey, wuxuu yiri waa 100 diinaar oo dahab ah oo sax ah. waxay tiri soo gal guriga. guri ayaa lahayd oo u gaar ah. gurigii soo galay. guri qurux badan ay leedahay, sariir qurux badan ay leedahay. albaabka la soo xiray. hooshii zinada ahayd oo lagu ballamay in la fuliyo kaliya dhiman. qoftan sariirtaas ee fuushay. qofka markuu soo dhawaaday ninkan rabay inuu ka zinaysto oo agteeda u soo dhawaaday, wuxuu soo xusuustay alla inuu hor istaagayo maalinta qiyaamo kaligiis, isagoo qaaban dhididaayo oo ilaahay iyo asaga cidna aan u dhaxeenin oo tarjumaan aan u dhaxeenin. wuu argagaxay, wuu gariiray. markaasuu wuxuu yiri gabaryay, lacagta aan ku sii qaado anna waa baxaa ifasax, waxba kaamara buu yiri. waxay tiri maxaa dhacay, maxaa kugu dhacay, maxaa aragtay, maxaa ku dhibay, ii sheeg. wuxuu yiri maya, ifasax kaliya inaan baxaan rabaa, ma bixi karaa uu yiri. markaas waxay tiri walaalo wax jira ii sheeg, ana aan ogaade. waa ku fasaxa walba, laakiin ii sheeg wax jiro. lacaga bixisay walba lacagtaada qaado ordo bax, laakiin wax ii sheeg. wuxuu yiri maya inaan baxaan rabaa walaale, lacagtana qaado. waxay tiri waayahay ii sheeg. hadaan ku sheegay fasaxay uu yiri ha. wuxuu yiri ilaahay hor istaagiisii aan soo xasuustay. zinada maanta hadaan galo ilaahay hortiisa maxaan ka sheegi doonaa uu yiri. waxay tiri walaalow waa baxaysaaye, laakiin maadaama ilaahay aa soo xusuusta darteeda, anna waxay tiri waxaan kaa rabaa inaad guursato oo shaqadan oo dhan baa iska dhaafo oo ay guursataan rabaa. markaas wuxuu yiri guur ha ii dambeeye, horta ii fasax. markaas waxay tiri waayahay, laakiin ii ballan qaad inay guursanaysid. aan baxo horta. baxay tiri. wuu soo baxay, magaaladiisu iska imaaday. wuu iska joogay. gabadhii way soo raadisay. wuu u sheegay asaga meeshu degnaa. way soo raadisay. markuu arkay waloo sheegay waxa la yiri gabadha banaanka u taagan. markuu arkay gabadhii uu arkay, naxdinta uu naxay darteeda wuu la geeriyooday. asagoo ilaahay dartiisa hool uga tagay oo ilaahay dartiisa waxaas faraha uga qaaday oo nidiisa ay fiican tahay ayuu gabadhii arkay. wuu naxay. markaasuu geeriyooday. markuu geeriyooday waa la aasay. gabadhii waxay tiri ninka inaan guursadaan u imaadaye qof kale oo asaga qaraabo ay yihiin ma jiro. waxaa la yiri ha, nin walaalkiisa jiro oo meelahan degan, laakiin faqiir waa wax uu haysta male. waxay tiri dartiisa u guursanaa. way guursatay.
إلهي سبحانه وتعالى وحوسيي تضبو ويل أي أودا شيء تضبو ويل أي نينكي أودا شيء إلهي أي أوكرامي أيضا ويدافتي هوشي أساقنا إلهي درتيسي أودافي إلهي درتيسي وحي الله دافنا بدل كده إلهي وكسينا يا دالين يروي إلهي أنك وضا بقنو زندان مقالة كفافتي ووضا أرقنا إلهي هالله بقو مركز زند قلي ربطو أما قبر أجنبي كأهجر كده أتابان ربطو waxaad soo xusuusataa ilaahay hortiisa inaad istaagi doonto keligaaga tarjumaan la'aan cid idin kala tarjumaysa male maxaad ku hadli doontaa ilaahay hadduu ku weydiiyo leh uu ku dhaho maalin hebel adi iyo gabadhaas qola isku soo xirteen waa zinaysateen anna waa kuu jeeday maxaad ku jawaabi doontaa walaalkeygiyow ilaahay ka baq gabdhoo ilaahay ka baqa dhalinyaroo wiil iyo gabdho ilaahay ka baqa adduunyadan inta aan joogno waa maalmo yar maalmahaas kooban iyo idin sirin caafimaadka yuusan idin sirin walla adduunyadan waa laga tegi doonaa adduunyadan inta laga tago ayaa waxaad geli doontaa qabri mugdi ah kaligaagaad geli doontaa weliba inta lagu aaso ayaa jiingad iyo cara lagugu shubi doonaa qofka adiga kuugu dhow xitaa qabriga habeenkaas ma kula hooyanaayo xitaa cid ogolaanaysa male caawo qabriga ninkan la joog cid ogolaanaysa male ilaahay aan ka wada baqno zinadan iyo fitantan ilaahay hanaga badbaadiyo anagana aan iska ilaalino ila alla ka cabsiga waa furaha adduunyada iyo aakhira lagu liibaanayo insha Allah ta'ala waxaan rajayn doonaa muuqaalkan kadib dhalinyarada oo zinada iyo balwadaha iyo malaayacnay ku jiro haday dhageystaan inay go'aan ka qaadan doonaan adida dhageysatana saaxiibkaaga si gaarsii maxaa yeelay addaalu ala khayrin ka faa'ili qofka wanaag qof tusiya wuxuu la mid yahay asagoo sameeyay oo kale ajarkiisa ay heli doontaa asagana waa la siinaya ajarkiisa wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh